runtii maanta farxad ayay ii tahay sida diiran ee sharafta leh ee walaaltinimada leh ee ehelnimada leh ee liigu soo dhaweeyay galmudug magaalada Dhuusamareeb waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan shacabka ku nool galmudug gaar ahaan Dhuusamareeb waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin marka xiga booqashadan aan maanta ku imid galmudug runtii waa booqasho ku salaysan arrimo kala duwan oo igu horeyso wada tashi oo igu ku xigto u kuurgalida xaaladaha dalka uu marayo oo ah xaalad doorasho oo uu dalka wajahay taasoo aan doonayo inaan anigii madaxweyne qorqor meel isla dhigno hadduu Allah subxaanahu wa ta'aala idmo waxaan leeyahay mar kale waa mahadsantihiin shacabka reer galmudug oo ugu horeeyay madaxweynahooda wixii wada tashigaas iyo turxaan bixintaas gadaal ayaan idinkaga soo sheegay doonaa hadduu Allah subxaanahu wa ta'aala idmo doorashadiina saan hore idinkugu sheegay dalka doorasho ayuu galay dowlad goboleed kasto waxaan leeyahay sidii lagu ballamay oo aan ku heshiinay horey ha loo socdo shacabka Soomaaliyeed doorasho ayay u ooman yihiin fadlan fadhiga laga kaco hal bilaabo doorasho si dalka uu marxaladan uga gudbo marxalad degan oo xasiloon u galo